بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دawada ku soo dhawo barnaamijkeena maanta qisadeena maanta waa qiso aad cajiib ah oo run ahaantii iyaduna aad u la yaab badan baadhihii maskaxda badnaa ee daacadda ahaa oo xafiiskiisa fadhiya ayaa waxa u yimi qof cabanaya wuxuu ka cabanayaa shandadeydii baa layga xaday shandadeydii yareedii lacagtu iigu jirtay jeebka iigu jirtay ayaa layga xaday haddana qof maalintii koowaad maalintii labaad haddana qof kala soo galay oo cabanaya muxuu ka cabanaya shandadiisa yareed laga xaday haddana maalintii saddexaad baa dad kala yimaadeen adigu xaruntii saldhiggii booliska ayaa waxa ku batay in shandadihii yaryaraa dadka laga xadayo lacagtoodii laga saarayo iyagoon isogeyn ay ka muxuu ahaaye laga xadayo markiiba booliskii ama baadhigu wuxuu bilaabay arrinta inuu baadho sababto arrin sahlan maaha number badan markay soo cawdaanoo intuba ay ka cabanayaan shandadeedii yareed baa layga xaday waa arrin u baahan in la eego dadkii bay waraysteen xaggeed shandada lagaaga xaday halkeebaad ku weyday qof kasta wuxuu idhahaa maalintii nooca ahayd intaasoo meelood baan maray ma garanayo meesha laygaga xaday ama igaga dhacday ma garanayo lase meelo badan baan maray aduu akhirkii waxa la waraystaba dadkii cabanayay oo la raaco qaacido aada u caamo baadhisa la isticmaalo daawada taa ogo qaacida jirta baadhisa la isticmaalo waa maxay qaacidadaasi waxaa la yidhahdaa waa inaad soo koobtaa dhammaan ixtimaalaadka wax alla wixii suurtagal ah waa inaad meel ku soo koobtaa soo yaraysaa aakhirkana aad taxliilisaa analysis ku samaysaa lafargur ku samaysaa lafagurka marka aad ku samayso waxaa kuu soo baxaya halka aad ka dhaqaaqayso baadhigi wuxuu yidhi waxaan markiiba bilaabay inaan ku sameeyo inaan yareeyo soo koobo wax alla wixii suurtagala ixtimaala inaan soo ururiyo oo sidaan u soo ururiyey qof kasta waxaan weydiiyaa maalintay kaalowntay xaggaad joogtay qofku wuxuu ihahdaa waxaan meel halkaasaan joogay kadib xaggaad qabatay warkooda wuxuu ku soo ururay maalintaa shandada aan waayayo meel masaajidaan ku tukaday masaajidkii marka aan ku tukadayna janaaze halkaa taalay baan raacay ilaa qabrigaan u raacay dhammaan waraysiyadii la wada qaaday waxaa soo baxay inay dadkan hal masaajidoo meel ku yaala oo caan ku ah in lagu tukado janaazada ay ku wada tukadeen maxaa markaa uu noqday runtii shaki ixtimaalkii koowaad wuxuu noqday markaa in dadkan shandada ay ku wada waayeen inta u dhaxaysa masaajidka ilaa qabriga arrintaa marka la helo waxay noqotay arrin aada runtii fiican oo waxa la soo ururiyey wax alla wixii suurtagal ka dhigaya in la helo qofkii dambiilaha ahaa kadib waxay bilaaween inay masaajidka ay soo boqdaan tiim loogu talagalay oo baadhayaali masaajidkiibay tegeen masaajidku waa masaajid casarka iyo duurka aada loogu tukado janaazada way eegeen waxba way soo bixi waayeen way ka soo noqdeen mar labaadba waxa u yeedheen dadkii haddana cabanayay ee farha badnaa baa loo yeedhay waraysyadiiba aada looga qaaday goormay kaalota xaggey kaaga dhacday sidaad u weyday nin odayo ku dhex jira raggaa shandadaha laga xaday ayaa isagu aada runtii umu cabiri karayn ama umu sheegi karayn umu sharxi karayn waxa uu rabo ama waxuu rabo inuu sheego markaa isaga way soo kaxeen waxay dhahaan goobtii baan ku geynana arrintan ay kaaga dhacday ama shandada ku weeday masaajidkii baa la keenay masaajidka dhexdiisa baa la yidhi bal qaabkii aada uga baxday masaajidka iyo siday ay xaaladdu ahayd noo sheeg ninkii baa wuxuu markaa tilmaamay albaabku ka baxay markuu sheegay albaabkaasaan ka baxay ayaa diiradda la saaray albaabka xaaladiisa waxaa soo baxay albaabkani waxa weeyaan waa daarad lasii dhex maro laba albaabu masaajidku leeyahy mid waxa markaad ka baxdo toos baad banaanka ugu baxaysaa midna daarad dheer baad sii dhex maraysaa waxay ogaadeen daaradan marka lasii dhex marayo dadku cidhiidhi fara badan inay gelayaan maadaama janaaze ay u baxayaanoo meydkii la wado in cidhiidhi badan ay gelayaan isla marhaantaana waxay kala ogaadeen inuu toos albaabkan waxa toos u qaabilsan cadceeddii baa runtii qabanaysa oo qofka wejiga ka qabanaysa marka intaa markii qofka wejiga cadceed ka qabatana markiiba waxa aada araggiisa xoogaaba isyar daciifinaya taasi waxay yidhahdeen waxay suurtagal ka dhigaysaa ninkan waxadaya inuu waqtigaa ka faa'iidaysto dib waxay u waraysteen dadkii kale soo cawday oo ay weydiiyeen war halkeebay albaabkeebaad ka baxdeen masaajidka markaad ka baxayseen qof kasta wuxuu sheegay albaabka odaygu sheegay maxaa iminkana lasoo koobay ixtimaalkii labaad ama meeshii labaadee suurtagal ahayd inay hawshu ka dhacdana waa lasoo koobay muxuu noqday albaabkani waa albaabka wax lagu dhacay marka maxaa meesha ka baxay qabrigii iyo agagaarkiisii inta loo sii socday qofkan ay shandadu ka luntay qofka shandadu waxay kaga luntay ama lagaga xaday bartan albaabkan weyn ayay noqotay haddaba sideebaa arrintii loo qaban karaa qofkii
tuugga ahaayee shandadaha la baxaaya dib bay u fadhiisteen tiimkii loo xil saaray hawshan waa tiim baadhayaala oo wata ninkii hogaamiyahoodii wata waxay idhahan maxaynu samaynaa nin baa fikrad keenay wuxuu yidhi dhegaysta shandadaynu soo qaadanaynaa kaaladh baynu ka buuxinaynaa jeebkaynu gelinaynaa shandadaa waxaan ku xidhayaa buu yidhi dun si qofka tuugga hadduu israa shandadaa la bax duntaas aan u dareemo markuu la baxaayo ay duntu aniga ii qabato markaa aan ugu dhego ninka tuuggaa sidii baa la sameeyey maalintii koowaad baa la tijaabiyey wax tuuga lama arag maalintii saddexaad baa markii la isu yimi nin ka mida shandadiisii la waayay oo la ogaaday shandadii in laga goostay laakiinse maxaa masalada dabciyey duntan lagu xidhaaba waxay noqotay dun jilacsan oo qofku aanu dareemeyn markuu cidhiiri ku jiro in muxuu ahaayey wax laga qaadaya in kale marka waxayna fikraddaas way naga fashilantee fikrad labaad baynu u baahannahay fikrad la yaab loo oo cusub bay keenay oo aad u cajiib ah laakiinse qariibna ah khayaalina iska oran karta niyo talow sida suurtagal u noqon kartaa laakiinse fikrad la yaab lay noqotay oo maxay noqotay fikraddii baa la soo dhigay tiimkiiba markasta brainstorming baa la samaynayaa waa la fadhiisanayaa kolba waa la taxliilinayaa oo waa la lafagurayaa sida tuugan wuxuu xaday kadib fikrad baa la keenay taa haddaan sheegayo waa la isla qaatay waxay tahay waan sheegi doonaa fikraddaasi fikraddii baa la isla qaatay masaajidkii baa la tegey qodob muhiimo ay ku baraarugeen baa jira tiimkan baadhayaashu maxay ku baraarugeen waxay ku baraarugeen ninkan tuuga waxadaya wuxuu ilaashanaya oo keliya dadka konton ka weyn dadka waaweyn oo kaliya ilaashanaya dhalinyarada shandadaha kala ma baxayo dadka waaweyn buu shandada kala baxaya marka tiimkan baadhayaashu ninkii ugu weynaa ayaa waxa loo xidhay shandad baa loo xidhay jeebka loo geli shandadana qaab yaroo gaara loo farsameeyey markii masaajidkii la tegey janaasadii lagu tegaday tii koowaad tii labaad mar dambe janaasadii dambe maalintii labaad ay ku tukanayaan ayaa iyaga oo safkii albaabkii ku jira oo albaabkii sidaa u maraya dhammaantood ninkii weynaaya shandada jeebka loo geliyana uu la socdo ayaa hal mar qayla yeedhay qaaq ay yeedhay hal mar baa nimankii barayaashu ay eegeen ninkii saaxiibkooda ag socday iyo qayladu bartay ka yeedhay markiiba waxay arkeen qofkii qaylinaya gacantay kusoo dhigeen way soo qabteen masaajidka halkiisa dambe qolka imaamkaa la keenay markiiba maxaa soo baxay inuu tuugu yahay oo siduu ku soo baxay shandada yare ay sameeyeen siday u sameeyeen fikradday keeneenee la fuliyey waxay ahayd nin ka mid ah wuxuu yidhi war waxaan samaynaynaa waxaynu soo qaadaynaa dabinka yare jiirka loo dhigaynu soo qaadaynaa dabinkaasaa inta hoose aynu ka goynaynaa balladhka ee ballaadhan baynu ka saaraynaa waxa weeyaan shandad baynu ku rakibaynaa dhinacna muxuu ahay kartoonana waanu ku adkaynaynaa kadibna shandadaa yar ee wadata muxuu ahay daminkii jiirka wadata ayaa jeebka loo gelinaya ninkan inoogu weyn jeebka loo gelinaya tuugu markuu israado qofka shandada kala bax daminkaasa faraha ka qabsanaya fikrad aad u cajiibay noqotay markaa dabin yaroo qaabkaa loo farsameeyey ayaa ninka jeebka loo geliyay tuuggii markuu meesha isiri ninka shandada kala bax gacantii maxaa ka qabtay dabinkii baa kaga dhegay waa kaa qayliyey qayladii iyagu waa kuwa ku baraarugeen ninkii qabtay ninkii markay soo qabteen oo qolka imaamka keenay markay qolka imaamka keeneen bay yidhahdeen haye noo sheeg dembiga aad gashay iyo sidaad wuxuu xadaysay uu qiran waaye inamari bay yidhahdeen furihii baabuurkiisa ay ka soo qaadeen markay baana furihii bay ka heleen furihii bay ka soo qaadeen baabuurkaagii noo gey bay yidhahdeen baabuurkii markuu u geeyeyna ay sidaa u fureenna baabuurkii waxay ka dhex heleen intaas oo shandadood oo kale oo uu soo xaday oo dadkii cabanaya ee booliska usoo cabanaya ay qaarkood lahaayeen oo sawiradooda ay ku jiraan ninkii markaa tuuga markuu arrintii arkay in lagu qabtay uu iska qirtay waxay kala yidhahdeen waxaad noo sheegtaa baabuurkan cidda iskale iyo ciddi kale kula shaqaysataa nin kaleo saaxiib yihiin oo ninka baabuurkaba iskale usoo dhiibay ayuu u sheegay ninkiiba markaa ay go-aansadeen inay isagana ka duldegaan oy gurigiisa markaa fatashaad ay ku sameynay baadhaan siday u baadhi karaan warqad waa inay haystaan ogolaansho maxkamadeed warqadiibay soo goosteen ninkii baa laga duldegay ninkiioo iska baradla baa la qabtay gurigiibaa baadhi lagu bilaabay isagana waxaa laga soo saaray intaas oo shandadood oo iyaguna dad ay ka xadeen oo sawiradoodii iyo dadka ay ku yaalaan wixii lagu garan lahaa iyo lacagba intii baa la isku qabtay labadina dembigooda waa qirteen inay dembiga ay galeen shandadaanha dadka masaajidka ay kaga xadi jireen markay janaasada u baxayaan sidii baa labadii nin maxkamaddii lagu geeyey dembigiina lagu soo ogay daawada qisadeena waa qiso aada u cajiib badan aan ka sheekeynayna masaajid iyo diin bay ka sheekeynaysaa maadaama masaajidii aynu ka sheekeyna diin waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo
oo runtii arrintan aad iyadana aad dhagahaaga u furto waxaa jira 10 caado oo haddaad maalin kasta aad samayso oo maalinla ay ku noqoto noloshaad isbedelayso 10 caado si kooban haddaan kugu sheego daawada wax weeyaan caadada koowaad waxay tahay maalin kasta waxaad isku daydaa inaad salaada jamaacada aad salaada ilaahay waajib kaaga dhigay jamaaca aad ku tukato dawo caado aad u cajiiba haddii aad isku daydo inaad salaad kasta jamaaca ku tukato waliba salaada marka aad tukanayso aad maskaxda geliso 5 minuutood ilaahay hor taagan tahay wax kale inaad maskaxdaada gelin oo kaliya concentrationka aad siiso salaada haddaad isku daydo maalin kasta inaad ku tukato jamaaca salaadaada oo 5 minuut ama 10 minuut hor taagan tahay concentrationkaaga iyo khushuucdaada aad salaad geliso isbedel leebla kugu dhacaya caadada labaad waxa weeyaan daawada isku day maalin kasta juz quraan inaad akhrido waa half an hour weeyaan haddii juzku kugu adag yahay xisbi ka dhigo waa 15 minuut caado arrintaasi maalinlaha ku noqoto qodobka saddexaad waxa weeyaan waxaad isku daydaa maalin kasta dikriga ilaahay ugu yaraan 30 minuut inaad ilaahay xusto حتى أديكو شقينا يا هالنقطة بل اسكت إن عادة كون نقطة ذكر الله وين صدق منه إن هالحصته قضب كعادة أفراد دولة وحوين أذك وعجيبك اسكت مالك استا شن يطمن من أمال 20 منت إن دغيستو عن مقاشو محاضرة دينية أو كسابسان جنة iyo cibaadada iyo aakhira ku saabsan haddaad laazimto inaad intaa samayso intaas waxay keensanaysaa saddexda horan soo sheegayba inay kugu raasuqaan oo dhiirigelin bay ku noqonaysaa maalin kasta joogto ah oo wax alla waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad salaadii jamaaca ku tukato quraanka akhrisato marka waa la yaab bay leedahay inaad daa'imto maalin kasta darsi yar oo habay waqtigu haya 10 minute xataa ahaade inaad darsi diiniga ila dhageysato oo qalbigaaga qaboojiso dawaacadada shanaad waxa weeyaan isku day maalin kasta inaad ugu yaraan 30 minute aad lugayso ama exercise iyo jimicsi aad samayso waa qodob aad u muhiim ah wada qodobka lixaad waxa weeyaan isku day maalin kasta habeenkii intaanad seexan baritoola waxaad qoranayso intaad buug yar soo qaadato waxaad ku qorataa baritoola hawlaha aad qabanayso ee ugu waaweyn ku yaala shaqaala tahay waxaad weydiisaa waa maxay baritoola shaqada aan qabanayo kuwa ugu muhiimsan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 5 ilaa gaarsi tobanaya gaarsi laakiin isku day kuwa ugu waaweyn oo kaliya inaad qaadato shanta ugu muhiimsan aad u soo horeysiiso haddii arrintaasi caado ku noqoto maxay manaya inaad dhaqan u yeelato maalin kasta inaad wax qabad samayso marka isku day habeenkii intaanad seexan bari waxaad qabanayso inaad book yar notebook yar aad ku qorato bari waxaad qabanayso oo markaad soo tooso subaxii ay diyaar ku tahay waxa waxaad qabanayso arrintaas waxay keenaysaa xataa wararku inuu ka tago dawa qodobka maxay ka ku raacay wax weyn ee toddobaad wax weeyaan isku day inaad gurigaaga waqti hore aad tagto haddii nin dhalinyaro tahay iyo haddaad xaas leedahayba isku day inaad gurigaaga hore u tagto maxay taasi faa'iido ka leedahay in xaaskaaga iyo reerkaaga aad la fadhiisato la sheekaysato caruurtaadii aad runtii tarbiyadayso wax u dhigto waalidkaagii aad la fadhiisato marka isku day halkaad waqtiga ku luminayso asxaabtaada in badan inaad la fadhido at least habeenkii waqti hore guriga hoyo oo reerka la fadhiiso daawada qodobka ka ku raacay wax weeyaan sideedaad wax weeyaan daawada waxaad isku daydaa oo qodob aad u muhiim ah inaad bishii ama maalinle haddaad lacagta dhaqaalo kugu soo galaan inaad wax yar kaydsato dhaqaalaaga 10% 10% isku day inaad kayd dhigato oo meel dhigato haddaad bil lacagta ku qaadatana bishii 10% meel ka dhigo waxay taasi tilmaamaysaa aakhirka inaad runtii dhaqaale fiican sameynayso qof kastoo caalamka dhaqaale sameeyay ama buugaga laga qoray dhaqaalaha sida loo sameeyo dhammaan qodobkan way ka sheekayaan kayd yar inaad samaysto oo joogta dawada qodobka waxa ku raacayo qodobka sagaalada ku raacay waxa weeyaan waa inaad isku daydaa at least wax yar inaad qofku caawiso yaani inaad la timaado wax bixin yar ama dhaqaalaha noqoto in wax dadka aad u qabato ha noqoto wadada aad ka leexisay wixii dhibaato ag yaalay ama dhagaxaantii ha noqoto ama qof miskiin oo caawisay qof aad wax yar siisay qof aad soo booqatay adu isku day maalin kasta wax yar oo wanaaga oo ihsaana inaad samayso qodobka arsina daawadaha waa qodob aad u muhiim ah qodobka u dambeeyaan ku soo khatiminaa daawada xaweeney tobanaad waxa weeyaan isku day maalintiiba ugu yaraan 30 minute inaad wax akhrido 30 minute haddaad maalintii ugu yaraan wax akhrido arrintaas aad u isbedel leeble kugu keenaysaa balow buugaad akhriyaysaa waliba hadduu ku saabsan yahay buugaga horumarka keena hadduu ku saabsan yahay ee nafta lagu horumariyo waxay taasi keensanaysaa maalin kasta naftaada inay horumar samayso oo kor u socoto
daawado waxaan ku leeyahay 10 ka caado haddaad maalin kasta samayso hadda waa 10 caado fudud waqti ka qaadan maayaan waxa lagu hubaa isbedel la yaab leh inay nafahna ay ku dhacayaan haddii inta sameeyno marka waa kugu baraarujinaya haddii aad rabto inaad ogaato sideebaan caado joogto u sameyn kara oo caadada aan uga dhigi kara wax ii joogta oo caado aan u sameyn karana waxaad dhegeysan kartaa casharka hore aynu duubnay baa jira oo arinta ku saabsan casharkaas oo shaashada kaaga muuqda kaas ayaad dhegeysan kartaa kaasa ku sheegaya sida caado wanaagsan aad u sameyn karto iyo sida caado xun aad uga tagi karto intaasan ku soo koobina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh